المدينة في خطر. وماذا ستفعل وأنت فرد واحد؟ هيا. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. القصص النبوي. قصooyinka nebiyada. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا برنامج كيني قصص كاها وإن ugu hadli doona qisadii Nabi Aadam calayhi salaam. Anigoo dhowr xalqadood ka dhigay waxaan jeclaystay inaan idin soo gudbiyo xalqadeedii koowaad iyadoo taxanayno si ahaan doonto insha Allah ilaa aynu ku gaarno xalqadeedii ugu dambaysa. Daawasho wacan. Fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe official. Fadlan subscribe kaasba ka garo subscribe saar gambalaalkana furo like iyo share kama marna. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Nabi Aadam calayhi salaam wuxuu ahaa aabihii dadka oo dhan. Alle ayaa ka abuuray dhoobo una sujuudsiiyey malaa'igtiisa oo dhan. Wax aan ka ahayn Ibliis oo diiday inuu u sujuudo Nabi Aadam calayhi salaam. Allah ayaa ku yiri shaydaankii maxaad u samayn weysay waxaan ku faray ee ahaa sujuuda. Shaydaankii oo isla weyni ku jirta ayaa ku jawaabay aniga ayaa ka wanaagsan Aadam calayhi salaam waayo aniga waxaad iga abuurtay dab aadamna dhoobo ayaad ka abuurtay. Markaas Allah subxaanahu wa ta'aala waxa uu ku yiri shaydaankii waxaad tahay mid laga fogeeyay naxariistayda. Allah ayaa shaydaankii waxa uu ka dalbaday ama uu ka baryay inuu u kaadiyo ilaa laga gaarayo qiyaamaha. Alla weyne subxaanahu wa ta'aala waa uu ka aqbalay codsigiisa. Kolkaas ayaa waxa uu doonay shaydaankii inuu arguto waxa uuna yiri Allow sharaftaadiin ku dhaartay dadka dhamaantood waan baadiyen doonaa ilaa adoomadaada cibaadada ku sifooway mooyee. Alla subxaanahu wa ta'aala waxa uu ugu jawaabay shaydaankii waan ka buuxin doonaa naarta jahannama cid alaal cidii adiga ku raacda. Allah subxaanahu wa ta'aala waxa uu baray Nabi Aadam calayhi salaam dhammaan magacyada iyo sheeyada iyo xikmadaha la isticmaalo. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. kadibna waxa uu ku beeray xaaskiisa Xawaa dajiyayna labadooda jannada dhexdeeda uguna digay inay u dhawaadaan geedaha ku yaala jannada geed ka mid ah. Laakiin hase yeeshee shaydaankii ayaa shaki ku abuuray oo ku yiri ma idin sheegaa oo ma idin tusaa geed haddaad cuntaan aynu weligii dhimanaynin aadna helaysaan boqortooyo dhammaad lahayn. Waxay dhaheen haa. Kadibna way cuneen geedkii. Allah ayaa ku yiri u dega dhulka. kadibna Nabi Aadam calayhi salaam Allah ayuu ku soo laabtay oo weydiistay dambi dhaaf. Alle subxaanahu wa ta'aala waa uu ka aqbalay. Allah awoodiisa ayay dhulka ku joogeen ama ay dhulka ugu noolaayeen farayna isaga kaligiis inay caabudaan. Alle subxaanahu wa ta'aala waxa uu ka yeelay Nabi Aadam calayhi salaam nabigii ugu horeeyay oo ummadiisa loo diro. qisada xalqadeedii koowaad halkan ayaan ku soo gabagabeynayaa. waxaan rajaynayaa inaad xalqada kale isku diyaarin doontaan insha Allah. sidaas iyo waxaan idinkaga tagayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. channelka haddaad ku cusub tahay subscribe dheh gambalaalkana furo like iyo share kama marna.